kulan wacan daawadeel halkani waa janalkeena halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida qodobada wararka ee xilligan aan idiin hayno waxaa kamid ah faahfaahin ka soo baxaya dil goordhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay howlgallada ay ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ka wadaan qaybo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay deegaanadii ugu dambeeyay oo laga wareegay dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidoo kale dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay tirada dagaalyahanada al-shabaab ee lagu dilay weeraradii ugu dambeeyay iyo howlgallada ka socda qaybo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya waa hagaag daawadayaal ugu horeyntii haddii aynu ku bilaawno ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyay howlgallo waxa ay kula wareegeen tuulooyin badan oo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Baay iyo Galgaduud oo ka kala tirsan dowlad goboleedyada Hirshabelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed deegaano badan oo hoos taga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa ciidamadu ay la wareegeen waxaana isaga baxay dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalyahanadooda halka ku sugnaa sida warbaahinta ay u sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee howlgalka hogaaminaya saraakiisha ciidanka dib u xoreynta deegaanka ee gobolka Hiiraan ayaa idaacadda VOA waxay u sheegeen in deegaano badan ay kooxda al-shabaab kala wareegeen iyaga oo wacad ku maray in gobolka oo dhan ay ka xoreynayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab maalmaha soo aadan deegaanadii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab lagala wareegay ee ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay kala yihiin Tardo, Mooro, Ari, Gumare iyo Qooxle oo dhammaantood hoos taga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan sidoo kale dhanka gobolka Baay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada huwanta ah ay ka sameeyeen waxay kula wareegeen deegaanada kala ah Baayaale, Caliyoodoyo, Xaawo Dhaysiile, Boorame, Karanoy iyo Daawudow howlgalladan ka soconaya qaybo kamid ah gobolada Hiiraan iyo Baay ayaa waxay noqonayaan kuwa safmar ah maadaama labadan gobol ay dhinac xuduud ka wadaagaan isla markaana ay ciidamadu ku dadaalayaan in aysan isu soo gudbin ama isu soo gurman al-shabaabka halka ka dagaalamaya dhanka gobolka Galgaduud haddii aynu markaa fiirino deegaanadii ugu dambeeyay oo ay ciidamadu la wareegeen saraakiisha ciidamada dowladda ee ka wada howlgallada deegaanada Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab lagala wareegay deegaanka Labidulle ciidamada xoogga dalka iyo kuwa xoreynta deegaanada bariga gobolka Galgaduud ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa ay markaa si nabdoon kula wareegeen deegaanka Labidulle oo in markaa ka yar 16 kiiloomitir u jira magaalada Ceel la helay ee gobolka Galgaduud howlgallada ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay si dardar ah ku socday waxaana lagala wareegay deegaano dhowr ah oo markii hore gacanta ay ku hayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iclaamiyay dagaal ka dhan ah al-shabaab waxaana horaantii bishan uu iclaamiyay dagaalkaasi iyadoo markaa ciidamadu ay si siman deegaanada uga dhaqaaqeen dadka Soomaaliyeed waxa ay aaminsan yihiin in al-shabaab laga adkaan karo ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar uu ka hadlayay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweyne Xasan ayaa mar uu ka hadlayay ama hadal ka jeedinayay Khamiistii in soo dhaaftay shirka 77 ee golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in al-shabaab laga adkaan karo isla markaana dadka Soomaaliyeed ay markan sameeyeen isku tashi iyadoo dowladooda ay garab taagan tahay wararka howlgallada waanu ku soo laaban doonaa markana ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kooxo hubeysan oo aan heebtooda la garan ayaa waxa ay aroornimadii hore saakay suuqa weyn ee Madiina waxa ay ku dileen mid kamid ah ganacsatada halkaasi ku dukaamaysanayay marxuumka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Daahir Jugle waxaana lagu dilay goobtiisa ganacsiga iyadoo dilka kadib ay goobta ka baxsadeen kooxihii bistooladaha ku hubeysnaa ee dilka fuliyay ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa goobta uu dilku ka dhacay gaaray waxa ayna markaa ciidamadu halka ka sameeyeen baaritaano aan loogeyn cid ay ku soo qabteen iyo natiijo ka soo baxday intaba ganacsadahan saakay la dilay ayaa waxa la sheegay in uu deegaan ahaan ka soo jeedo degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo kamid ah goobaha ay markaa ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo iyo dagaallo ka dhan ah al-shabaab horey waxaa Muqdisho loogu dilay odayaal iyo dad kale oo ganacsato ah oo ka soo jeeda magaalooyinka Cadaado iyo Baxdo lamana oga in dilkan uu daba socdo dilalkii horey u dhacay in kale saraakiisha hogaaminaysa howlgallada ee ka socda gobolada dalka ayaa waxay ugu baaqeen dadka waxgaradka ah iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba inay sameeyaan foojignaan iyo taxaddar dheeri ah maadaama al-shabaab aysan awoodin in ay goobaha dagaalka u babac dhigaan ciidamada huwanta ah taa beddelkeedana ay dhibaateynayaan dadka ku ganacsanaya magaalooyinka iyo kuwa barimageedada ah hagaag ugu dambeyntiina dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen deegaano kamid ah gobolada Galgaduud, Hiiraan iyo Baay oo al-shabaab lagala wareegay
qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay la wareegeen deegaanada kala ah Labidulle, Ceel la helay, Dhuumoodle, Aboorey, Dhisiqa, Cali Weyd iyo Meygag Duub oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Halka dhanka Hiiraan Al-Shabaab lagala wareegay magaalada Moqokori oo ah magaalo istiraatiiji ah isla markaana muhiim u ah isu socodka qaybo ka mid ah gobollada dalka. Dowladdu waxa ay sidoo kale sheegtay in shabaab dagaalada deegaanadaasi looga qabsaday lagu gaarsiiyey khasaare xooggan iyada oo looga dilay ku dhowaad 30 ka mid ah dagaalyahanada iyo saraakiisha Al-Shabaab halka laga qabsaday 15 deegaan sida warka dowladda lagu sheegay. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn waxa ay dagaalamayaasha Al-Shabaab u dirtay fariin ah inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda ciddii fursadaas dayacdana waxaa lagu yiri ciqaab adag ayay wajihi doontaa marka dagaalka lagu qabto. Dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab weli ma aysan ka hadlin howlgalladii u dambeeyay ee deegaano dhowr ah looga qabsaday iyo sidoo kale warka ka soo baxay dowladda federaalka ee lagu sheegay in lagu dilay qaar ka mid ah saraakiisha iyo dagaalamayaasha ururkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo deegaanada howlgalladu ay ka socdaan ayaa waxa ay sheegayaan in markaa howlgalladu ay qayb ka yihiin diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo Mareykanka kuwaasi oo baacsanaya dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee markaa is-abaabulaya isla markaana xagga dhulka ciidan infantry ah oo kuwa dowladda iyo dadka deegaanka ah ay ku baxeen. Deegaanada ugu badan ee Al-Shabaab markaa iska caabinta ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaano dhaca gobolka Hiiraan oo markaa miinooyin ay ku aaseen ay khasaare ka soo gaartay ciidamo iyo sidoo kale dadka deegaanka. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya xilligan aad kala socoteen channelkeena Halbeegga Wararka wanaagga intaan dib u kulmi doono nabadgelyo.